safiirka xigeenka safaaradda Soomaaliland ee dalka Kenya ambassador Ayaanle Salaad Diiriye ayaa waxa uu ka hadlay qiimaha ay leedahay abaalmarinta shakhsiyaadka wax ku soo kordhiyay qaranka. Safiir Ayaanle sidoo kale waxa uu ka hadlay abaalmarin la siiyay safaaradda Kenya iyo safiirka dalkaasi Kenya ambassador Baasha Cawil, waxaana ku nuuxnuuxsaday in Baasha Cawil uu wax badan ka soo qabtay dalka Imaaraadka. ay ku mutaysteen wax qabadkooda iyo sharaftooda raggaas oo aan rag badan oo aan saaxiibanahay oo ka mid yihiin xasan oo dhinacayga fadhiya. xasan waxaanu ahayn isku reer burcaanu ahayn, macallimiin baanu wada ahayn, iskuul baanu wax ka wada dhigi jirnay ka hor inta aanan diblomaasiyadda aanan ku biirin. aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa sida fiican ee iskuulka iyo isaguba ay ugu dhiiradeen in ay ciidanka qaranka ay ku maamusaan ubadkooda oo had iyo gooraale ubadada kale ee dadka shaqeeya ka dakhli hooseeya inay u garteen inay siiyaan safaarad ahaan abaalmarintan halkana lagu siiyey runtii waxay noo tahay dhiirigelin. aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa dhallinyarada abaabushay ee garatay ama u garatay dadkan inay yihiin dad bulshada wax ku biiriyey. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. annagana waxay noo tahay dhiirigelin. runtii ambassador Baashe oo anigu aan maanta wakiil ka ahaa, saaxiibkiina aan ahay, shaqana naga dhaxayso, waa nin runtii dadaal fara badan geliyey dalka, imaaraad ka soo shaqeeyey, waa second bosskiisii halkan nairobina shaqo weyn ayuu ka qabtay, isaga ayaa noogu odaya. runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa. waxa ay wax ka badanna qaranku nin kasta oo muwaadin kasta oo Soomaaliland jooga wuu uga baahan yahay dadaalka halkaa, waayo waxaynu abuuraynaa qaran aynu doonayno inuu qaramada dunida adduunka la tartamo. aad iyo aad ayaa saxaafadda iyo dadkii soo abaabulay, dhallinyaradii soo abaabushay abaalmarinahan dadka abaalmarinaha ku guddoonsiiyeyna aad iyo aad baan u bogaadinayaa, waayo waa dhiirigelin. dadkaas kale dad badan oo kale ayaa ku dayanaya oo doonaya inay waddanka iyo qaranka wax u qabtaan. aad iyo aad ayaan iyaga ugu mahadnaqayaa visionkooda, aragtidooda iyo sida ay runtii u dadaalayaan, ay doonayaan inay dalkooda iyo qarankooda wax ku biiriyaan.